xiisadda ka dhex aloosan labadii dal isugu dhawaa bariga dhexe boqortooyada Sacuudiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay dawaaqadii sanadkii tagay ee 2025. inkastoo labada dal ay markii hore Yemen u galeen si ay uga hortagaan kooxda Xuutiyiinta, haddana waqtigan waxaa muuqata inay danahooda istiraatiijiyadeed ee hadda u kala weecdeen qaab horseedi kara iska horimaad toos ah oo ka dhex qarxa xulafadii shalay. iska horimaadkan hadda taagan wuxuu si xoogan u qarxay markii xoogagga golaha ku-meel gaarka ah ee koonfurta Yemen ee loo yaqaan STC oo ah koox gooni-goosad ah oo uu taageero Imaaraadku ay ku dhiiradeen inay gacanta ku dhigaan gobollada istiraatiijiga ah ee Xadramout iyo Almahra. haddaba waxaan kula wadaagayaa sidee xadgudubka Israa'iil ee Soomaaliya u burburiyey danihii Imaaraadka ee bariga dhexe iyo Afrika. waxaana ku leeyahay soo dhawow, haddaad u cusub tahayna igu soo biir oo ka mid noqo asxaabta sharafta badan ee halkan iiga xiran. mahadsanid. dhawaaqii sida weyn looga hor yimid ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu Jimcihii hore ku sheegay inuu aqoonsay Somaliland ayaa horseeday isbeddel degdeg ah oo ku yimid danihii isutaga Imaaraadka Carabta ee uu ka lahaa dalal kala duwan. dalka ugu horreeya ee Imaaraadku caqabad kala kulma ayaa noqday Yemen, kadib markii ay fahantay in Imaaraadku ku howlan yahay dadaalo lagu doonayo in qayb ka mid ah dalkeeda ay aqoonsato Israa'iil. arrintaas awgeed, xukuumadda Imaaraadka Carabta waxaa lagu amray in ay dalka Yemen kaga baxdo muddo 24 saac. amarkaas oo si buuxda loo fuliyey. sidoo kale, dhaqdhaqaaqyadii Imaaraadka ee dalalka Suudaan, Liibiya iyo dalal kale oo Carbeed ayaa si weyn hoos loo dhigay si looga hortago in mar kale laga eriyo dalalkaas, gaar ahaan iyadoo Imaaraadku sanadihii u dambeeyey ku aruurinaya ciidamo, hub iyo dhaqaale badan dalal dhowr ah. wararka la helayo ayaa tilmaamaya in arrintani ay keentay khilaaf gudaha ah oo ka dhex qabtay xubnaha ku midaysan isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo qaar ka mid ah ay muujiyeen cara ku aadan sir qarsoon oo la ogaaday, taas oo ay muddo dhaqaale ku bixinayeen iyagoo aan xog buuxda ka hayn. dhinaca kale, Sacuudiga oo muddo si dhow ula socday qorshayaasha uu waday isutaga Imaaraadka Carabta ayaa adeegsaday istiraatiijiyado adag oo intooda badan hirgalay, kuwaas oo ay ka mid tahay beegsiga kooxihii lagu ururinayay Yemen iyo xoojinta kacdoonnada gudaha dalkaas. Imaaraadka Carabta ayaa hadda wajahaya cambaareen ballaaran oo uga imaanaysa dalalka Carabta, waxaana dib loo milicsanayaa qalabkii iyo qorshayaashii fashilmay ee u adeegsaday kala fogeynta dalalka ay rabshaduhu ka jiraan, isagoo arrintaas u ekeeyey mid gargaar ah. qaar ka mid ah muwaadiniinta Imaaraadka ayaa bilaabay inay adeegsadaan baasaboorro dalal kale si ay uga baxsadaan xaaladaha adag ee soo wajahay, sida ay sheegeen ilo kala duwan. ugu dambeyn, Imaaraadka Carabta waxaa loo arkaa mar inay Israa'iil u adeegsato xiriirinta xubno doonaya in laga gooyo dalalkooda, waxaana kordhay safaro qarsoon oo ay sameynayaan xubnahaas. inkasta oo haatan uu jiro feejignaan cusub oo lagu kormeerayo dhaqdhaqaaqaas.